naga baxshay dhaheen gabadhina jeesana xanuun ku haya la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ya urka banaanka ka qaba banaanka yaala dhahoyaane xalay waxaa si weyn baraha bulshada loogu hadlayay muuqaal la sheegay in hooyo Soomaaliyeed ay ku umushay bannaanka kore ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Arrintan oo ahayd mid naxdin iyo murugo leh ayaa loo arkay ceeb weyn oo ku dhacday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, iyada oo la sheegay in hooyadaas dibadda loogu soo saaray sababo la xiriira lacag la'aan. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda ayaa arrintaas beenisay kadib hadalayntii xoogga lahayd ee baraha bulshada. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji ayaa maanta booqasho degdeg ah ku tagay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir si uu ugu kuurgalo dhacdada lagu arkay muuqaalada baraha bulshada ee muujinayay hooyo Soomaaliyeed oo aan helin gurmad caafimaad oo degdeg ah. Intii uu kormeerku socday, wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay maamulka isbitaalka, dhakhaatiirta iyo shaqaalaha shaqaynaya xilligii ay dhacdadu dhacday. Wasiirka ayaa sidoo kale dib u eegay faahfaahinta dhacdada oo ay ka mid yihiin duubista CCTV-ga, diiwaanka bukaan qaadista iyo xogo kale oo muhiim ah oo la xiriiray in sheekadan wax weyn lagu ogaado. Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka, wasiirka ayaa sheegay in dhacdadan ay tahay mid aan marnaba la aqbali karin maadaama adeegyada caafimaadka ee degdega ahi ay yihiin xuquuq aasaasi ah oo muwaadin kasta leeyahay. Wuxuuna ballan qaaday in marka baaritaanku si rasmi ah loo soo gabagabeeyo, tallaabooyin maamul iyo sharci laga qaadi doono cid kasta oo ku lug yeelata mas'uuliyaddaas. waxaan u caddaynaya ummadda Soomaaliyeed kiiska inuusan xali ahayn, kiiska uu dhacay 26 Oktoobar inuu dhacay. waxaa kaloo oo noo caddaatay waxyaabaha qaar la wareejinaya propaganda inay yihiin, oo kiiska dad dhahaya lacaga la weydiiyey, lacag darteeda loo soo saar dhahayana inaysan waxba ka jirin, wax lacag la weydiiyey aysan jirin ayaan sidoo kale xaqiiqsanay. waxa ay noo caddeeyeen shaqaalaha iyo maamulka camera CCTV-na aan ka aragnay in la refer gareeyey kadib markii ay ogaadeen canuga inuu yahay premature oo bilo dhiman ah, aysan u haynin incubator ventilatorka oo ka ciladaysan darteed inay u refer gareeyeen ay noo sheegeen. laakiin waxaan qiraynaa ummadda Soomaaliyeed ka qiraynaa in mas'uuliyadda intaas aysan nooga dhacaynin, in isbitaalka dawladda ay ku faanto hortiis in waxaas ka dhacaan wax la aqbali karo ay ahayn, in aan samayn doono guddi baaritaan annagoo la kaashanayna xeer ilaalinta iyo CID-da, in tallaabana laga qaadi doono cid walba oo ku lug yeelata qalad halkaas ka dhacay. waxaan saa ka soo booqannay isbitaalka Banaadir oo xalay la wareejinayay video naxdin leh hooyo Soomaaliyeed oo isbitaalka hortiisa ku foolatay. dhacdadaas annagoo ka duulayna ayaan saa ka soo booqannay isbitaalka. waxaan kulan la qaadanay maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha oo aan ka wareysannay sida ay wax u dhaceen. waxaan daawannay sidoo kale camera CCTV-ga ayaan daawannay. waxaan aad uga xunnahay ummadda Soomaaliyeedna aan ka raali gelinaynaa in kiis noocaas ah ay ka dhacaan isbitaalka Banaadir hortiisa, oo ah isbitaalka ugu weyn ee hooyada iyo dhallaanka lagu daryeela ee dawladda ay ku faanto. isbitaal Banaadir oo ah isbitaal kumanaan hooyo ah sanad walba ay ku dhalaan laguna daryeelo, boqolaal hooyooyin ahna bil walba ay ku dhalaan laguna daryeelo. isbitaalka Banaadir oo ay maalgelin xoogan gelisay dawladda Soomaaliya, in ka badan 250 shaqaale ka mid ahna ay mushaar siiso dawladda Soomaaliya. in kale oo intaas tiro kalena gunooyin ka helaan hay'ado dawladeed, hay'ado la shaqeeya dawladda iyo wasaaradda la shaqeeya ay gunooyin ka helaan. maalgelin xooganna lagu sameeyo sanad walba. in hortiisa kiis noocaas ah uu ka dhaco aad baan ugu xunnahay, ummadda Soomaaliyeedna waa ka raaligelinaynaa. kadib markaan wareysannay shaqaalaha iyo maamulka aanna daawannay camera CCTV-ga, waxaa noo soo baxday ayna noo caddeeyeen in kiiska oo ahaa premature canug oo aan bilaha dhammaysanin in la xawilay, la refer gareeyey, isbitaalka loo refer gareeyey. kadib markii la qaabilay, la baaray, in la refer gareeyey, isbitaalka loo refer gareeyey. waxaan u caddaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in baaritaan dheeri ah aan samayn doono annagoo kaashanayno xeer ilaalinta, CID-da iyo hay'adaha kale ay khusayso. si dhab ahna aan ugu tabatagi doono wax kasta oo qaladaad ah ama dayacaad ah ee laga yaabo inay halkaas ku jiraan aan ka dabatagi doono, tallaabana la qaadi doono ayaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa. waa la xawilaa bukaanada haddii isbitaalka
kaysas qaar waxyaabaha qaar uusan xallin karin ay jiraan waxay noo sheegeen in ventilators oo ciladaysan darteed ilmaha berimajoorka ah meel ay ku xanaaneeyaan hadda inaysan u haynin ee dhalo la geliyay inaysan u haynin sidaa darteedna ay u rifeer gareeyeen ay noo sheegeen laakiin mas-uuliyadda intaas nooga dhici mayso in kiiskaas isbitaal hortiisa uu ka dhaco ayaa ah wax aan la aqbali karin ayadoo isbitaalka uu leeyahay ambalaasyo ayada oo maaragtay isbitaalka uu leeyahay dhakhaatiir iyo umulisooyin tiro badan oo dawladda mushaar ay siiso oo shaqadaas qaban karo in kiiskaas isbitaalka hortiisa uu ka dhaco mid la aqbali karo ma aha min aan justification iyo marmarsiyo u samaynaynan ma aha baaritaan dheeraad ahna waa samaynaynaa annagoo la kaashanayna hay-adaha ay khusayso insha allahu tacaala tallaabo dhab ahna waa la qaadi doonaa hase yeeshee ilaa hadda natiijada baarista rasmiga lama shaacin sidoo kale lama magacaabin cidda sida tooska loogu eedeeyey dhacdan marka laga reebo warqad shaqo ka qaadis ah oo wasaaraddu soo saartay taas oo lagu bedelay agaasimihii hore ee isbitaalka banaadir doctor fartuun shariif su'aalaha ugu waaweyn ee weli bulshadu isweydiinayso waxaa ka mid a haddii agaasimaha shaqada laga eryey ma isaga ayaa lagu eedeeyey dhacdada haddii caddayn ay jirto maxaa loo soo bandhigi waayey haddii lagu waayo caddaymo maxaa sabab u noqday xilka qaadista haddii ay tahay dayacaad shaqo maxaa maxkamad loo horkeeni waayey iyadoo su'aalahaas aan weli jawaabo rasmi ah loo helin haddana wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa weli shaqadiisa iska sii wata waxaana hirgashay ama dhaqan galay warqadda magacaabista agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay isbitaalka halka ay bulshadu weli ka doodayaan sida ay dhab ahaan u dhacday arrintan qaar ka mid a dadka falanqeeya arrimaha bulshada ayaa soo jeediyey inay jiraan arrimo ka hoose oo wasaaradda gudaheeda muhiimadduna ay ahayd in xilka laga qaado agaasimo fartuun shariif balse ilaa hadda lama hayo caddaymo rasmi ah